waxaan u mahadcelinayaa dhammaan bulshada degmada Yaaqshiid gaar ahaan ururka haweenka oo ah laf-dhabarka ay degmooyinka ku dhaqaaqaan sababtoo ah howl kasta la qabanaya ama shaqo kasta la qabanaya waxa ku jirta hooyo Soomaaliyeed mar kale waa u mahadcelinayaa ururka haweenka degmada Yaaqshiid sida quruxda badan leh caawa uga qayb qaadanayaan ololaha nadaafadeed ee halkan ka socda dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir waxaan farayaa mar kale oo xoojinayaa in ay sameeyaan iskaashi ay iska kaashanayaan in magaaladan bilicdeeda la soo celiyo degmo kasto waxaan ku booqan doonaa xarumaheeda iyo dhammaan meel kasto ay shaqo ka socoto waxaan kormeeri doonaa wada kasta oo nadaafadeedu ay cilad ka jirto waxaan rajeynayaa in gudoomiyaasha degmooyinka iyo dhammaan degmooyinka gobolka Banaadirba ay ka qayb qaadan doonaan sidii bilicda magaaladan loo soo celin lahaa annagu waxaan ku shaqeynaynaa amirta iyo amarka duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cumar Filish sababtoo ah magaaladani waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo shaqo badanna laga qabto sidaad ogtiin maalin dhaweyd waxaan furay ama shalay waxaan dib u furay wadada Fagax oo muddo u xiray roobkii mihigaanka ee da'ay iyo dhiiqadii ay dhigtay iyo caradii waxaan hadda rajeynaynaa inay shaqeynayso ay nadiif tahay oo guud ahaanba shalay aan daafurnay waxaan mar kale u mahadcelinayaa degmada Yaaqshiid oo ay ka joogaan maamulka intiisa badneyd gudoomiyada degmada oo naga cudurdaar shaqo u jiro waa mahadsan yahay halkiisa ugu mahadcelinaynaa waxaan rajeynayaa degmo kasta inay sidaan iyo si ka qurux badan ba ugu qayb qaadan doonto sidii bilicda magaalada loo soo celin lahaa sababtoo meel aan nadaafad ka jirin nolol kama jirto waa mahadsantii mar kale waa inay midii mahadcelinayaa dhammaan inta caawa hawshan ka qayb qaadatay assalaamu calaykum